السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaad shabakada laga barto cilmiga technology guud ahaanteeda oo loo yaqaan Tajmaal. Waan iyo Aamin Cabdi. Haddii alla idmo waxaan ku qaadan doonaa oo aan si serious ama taxanaan u bilaabi doonaa course cusub oo goordhaweyd ku shaacinay shabakada page-ka ku leedahay Facebook ee Tajmaal. course-kaas oo ugu magac darnay halka baro technology-ga. course-kaas waxa uu ka kooban yahay haddii aan introduction caawa ka siiyo ama muuqaalkeena aan ku bixino, waxa uu ka kooban yahay 3 cutub. 3 cutub oo cutubkiiba uu ka kooban yahay 10 lesson ama 10 cashar. waxaan ugu talagalnay haddii alla idmo in halkii cashar uu socdo 10 daqiiqo. 10kii cashar markaa maxay soconayaan 10 times 10 oo 100 boqolna ku dhufo 3 cutub waa 300 oo minute. 300 minute 60 haddaan u qaybino maxay noqonaysaa waa 5 saacadood. marka si guud waxaan ugu talagalnay course-ka si dhameystiran ee cutubka uu ka kooban yahay 3 cutub uu ka kooban yahay course-ku inaan ku qaadano 5 saacadood gudahood. 5 saacadood waxa aan ugu talagalnay in horsaan hore soo sheegnay casharkiiba 10 daqiiqo ugu badnaan aan ka dhigno. qadarka lana uu jiraa oo sometimes waxa laga yaabaa inaan waxa anaga noo qoran aan qorsheysaneen hadda idin sheegayno iyo taala noo qorsheeyay inay kala duwan tahay. mana garanayno maalintaan dhimanayno. sometimes waxa laga yaabaa in waqtigu iga buuxo aan course-kan maanta casharkiisa hore ugu bilaabay inaan inta sii wadi waayo, laga yaabaa inaan dhameystiro. marka haddii alla idmo waxaan ugu talagalnay oo ilaahina waafajiyo inaan 5 saacadood ku dhameystirno course-ka. cashar maalin walbana cashar ayaan soo gelinaynaa. casharkaana waan soo share garaynaa YouTube-ka. waxaan kala soo dhigaynaa baraha bulshada ee Facebook, Twitter, Instagram. 13 cutub intaanan u guda gelin oo macnaha casharadii ka kooban yihiin 3 cutub aan idin sheegin askiin baro. aniga waxa la yiraahdaa Aamin Cabdi. waxaanan ka shaqeynayay oo blogger ka ahaa 2 years shabakada Tajmaal. marxalado kala duwan soo martay, ha noqoto mar aan YouTube ko kaliya ka shaqeynay, ha noqoto mar aan freedom name aan isticmaalanay, iyo hadda ay noqoto imika oo isticmaalno shabakada dhameystiran oo tajmaal.com ah. shabakada Facebook aan ku leenahay, shabakadan aan ka leenahay internetka internetka ku leenahay. waxaan aasaasnay shabakad ahaan maaha Tajmaal ahaan waxaan aasaasnay 2014 ilaa imika dabeeqadiisa 2014 ilaa 2016 aan imika ku jirno ayuu macnaha dhisan yahay. marka waxa sanad 2 sano ku dhawaad ay aasaasantay shabakada Tajmaal. arday badan way ku xiran tahay. waxaan ku leenahay barayaal bulshood sida Tajmaal YouTube channel-kan ku leenahay oo in ka badan 36 video aad ka helaysid shabakada Tajmaal channel-ka ku leedahay YouTube ee Tajmaal. waxa kale oo leenahay Twitter oo aad arkaysiin inkastoo aan goordhaweyd sameynay laakiin inta badan aan ku soo share gareyno videoyada YouTube-kan soo gelino sababtoo ah kaliya. waxa kale oo leenahay isagana goordhaweyd sameysanay Instagram oo shabakadu iska leedahay oo sawiraan badan ku jiraan. waxa kale oo leenahay shabakada waxay leedahay Facebook channel oo ku leenahay baraha bulshada Facebook kaasoo inta badan aan soo share gareyno wixii cusub ee aan soo bandhigno shabakada ama YouTube-ka channel-kan video soo dhigno oo loo yaqaano Tajmaal. haddii aad rabtiin inaad qortina waa facebook.com/tajmaal.com ayaad qori si toos ah u keenay. inta haddaan kaga imano waxaan hore u soo sheegnay in casharkeenan amba course-keenan ugu magac darnay halka baro technology-ga. hordhac ayaan insha Allah casharkan hordhac ku qaadanaa waa content-kii. marka chapter-ka koowaad waxaan ku qaadanaa amba cutubka koowaad af Soomaali. inta badan haddii aan idin xasuusiyo waxaan rabaa inaan af Soomaali ka wada dhigno
inkastoo sometimes ay luqadda Englishku ay muhiim tahay oo waxaan Soomaaliga ku fahmi weynaan isku fahansiin doono English, laakiin haddana inta ugu badan 80% waxaan ka dhignaa luqadeena Soomaaliga. waxaanan kooraska ugu talagalnay qof walba oo aanan teknolojiyada waxba ka aqoon amba raba inuu teknolojiyada ka bilaabo from the basic ilaa uu ka gaaro meel sare. waa ka gaar qofkii raba inuu macnaha si professional ugu noqdo basican isagoo ka bilaabaya ayuu basicyo kalena way jiraan oo English ku baxa oo luqadda, laakiin kan waxaan ugu talagalnay kooraskan qof walba oo u raba si uu isagu wax uga faa'iido, laakiin ana rabin si professional way kala duwan tahay markaad professional rabtay inaad jaamacad u gasho degree master as ku qaadato computer science, iyo markaad rabtay inaad wixii ka galadan imka aqoontiiba waxay isku soo wartay internetka, markaad internetka wax ka baaranayso, markaad computerka hagaajinayso, marka caalamka kale sida Americanka, Europeanka, Asianka waxay intooda badan dadkooda bulshooyinkooda ku nool waxay inta badan yaqaanaan sida ay ula tacaali lahaayeen carqaladaha kale imanaya macnaha teknolojiyada, sida ula socon lahaayeen wararkii ugu dambeeyay caalamka ka dhacaya, sida ula socon lahaayeen macnaha wixii ku soo biiray ee la infatigareeyay caalamka, computerada systemyadii ugu dambeeyay la soo saaro, computeradii ugu dambeeyay la soo saaro, sida macnaha u baran lahayd. marka way wada yaqaanaan waayo basic ay ka wada dhisan yihiin. aniguna waxaan rabnaa ka tajmaal ahaan inaan basic bulshada Soomaaliyeed qof walba meel kastoo dunida ka joogto inaan basic ka dhisno bulshada Soomaaliyeed, oo inta badan waxaan ugu kalifay kooraska inaan sameynana waxa uu ahaa marka tajmaal aan soo gelino casharaanta ugu badan aan soo dhigno ma fahmaan ardaydu ama dadku bulshadu ma fahanto sida u daawan lahayd, ama sometimes waxa laga yaabaa in qofkii fahmi waayo. marka waxaan ugu talagalnay waxa weeyaan in bulshadii aan isla jaan qaadno oo teknolojiyada iyagoo wax ka garanaya casharaantii kale si general aan soo bandhignay ay u baahnayeen, sida internetka saa wax looga iibsado, saa wax loogu kaydsado, dhibaatooyinka ka iman kara teknolojiyada, waxaasoo dhan aan kasoo dhigno saa looga hortago. markaan ka hadlayno si ay noo fahmaan waxna u baaran karaan hadhowtole, oo haddii ay aqoontoy ama project soo jeedi lagu dhaca jaamacadii ama dugsigii assignment lagu diro saad uga baaran lahayd, sidaad wax xog badan aad uga heli lahayd internetkii. haddii computerkaaga ka xumaado saad u hagaajisan lahayd, saad ma haddii uu ka format gareysmo aad u soo ceshan lahayd datadii, si haddii passwordkii ka lumo saad u heli lahayd passwordkii uu ku lahaa, ama aad windowgii uga bedeli lahayd oo windowgii ugu dambeeyay sida imika window 10 oo imika isticmaalayno kale. sometimes dadku inta badan ma yaqaanaan window 10 iyo window 7 iyo window 8. sala actually waa systemka dhan ee computer ku shaqeeyo. marka computeradii ayaan wax ka baraynaa, mobilkaagii ayaan wax ka baraynaa, oo maanta haddii androidkii ugu dambeeyay oo imika la socdo Nutella kaasaad ula socon lahayd macnaha androidkii ugu dambeeyo 7.0 ah oo aad ugu shuban lahayd mobilkaaga, sidaad ugu shuban lahayd ama aad macnaha u isticmaali lahayd applicationada haddii aad Play Store kuugu jirin internetka sida kale aad ugu soo download gareysan. sometimes applicationan laga helin Play Store ayaa jira, saad ugu soo download gareysan lahayd, aad ugu install gareysan lahayd, haddii virus ka galo saad uga saaran lahayd, haddii aad password kaaga xirmo saad uga saaran lahayd, internetkii saad u isticmaali lahayd. saasoo kale ayaan insha Allah ku baran doonaa chapterka on macnaha ku soo bandhigi doonaa. haddii alla inmasaan ugu talagalno qorshahayga waa saan hore soo sheegay 5 saacadood oo yoomkii ama daqiiqo oo socon karo casharkii kaliya 10 daqiiqo. waxaan ka kooban yahay saan hore soo sheegnay cutubka koowaad computerka iyo agabkiisa oo ku baran doono waa maxay computer iyo qaybihiisa, sida uu shaqeeyo computerka iyo qaybaha system ee uu ku shaqeeyo, qaybaha uu computerku ka kooban yahay iyo shaqadooda, habka loogu shubo software-rada, maxaad ku dooran lahayd haddii aad computer cusub aad maanta suuqa tagtood iibsanayso, maxaa waxyaabaha aad ku dooran lahayd hobigaaga ah aad ku jeclaan lahayd waa maxay. mobilka iyo agabkiisa aan dooran doonaa waa maxay qaybaha uu ka kooban yahay mobilku iyo shirkadaha inta badan soo saara, systemyada uu ku shaqeeyo iyo sida ay u shaqeeyaan, waa maxay sida ugu shuban applicationada iyo aan internetka ugu soo dejisan lahayd, maxaa
waxaad ku ogaan lahayd mobilka aad iibsanayso inuu fiican yahay iyo inuu original yahay in kale waxyaabahaas oo kale ayaan ku baran doonaa sida loo isticmaalo internetka sida uu shaqeeyo iyo internetka ayaan baran doonaa haddii aan leedmo oo sida loo sameeyo social networks Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Tumblr saas oo kale social networkska inta badan la isticmaalo saad adigu shakhsi ahaan aanad qofna uga baahan inaad ii sameey ka tiraado ama aanad uga baahan qof inaad ka tiraado Gmail maanta ii sameey oo aad adigu samaysan lahayd oo isku filan lahayd kooraskana waxaan u furnay oo u sameynayna waxa weeyaan soo qof walba isagu nafahaantiisa u gaari lahaa isku filnaansho xagga technology-da oo qofna uga baahnay qofna uga baahnayno maanta haddaan computer qof wari hagaaji iyo saas uu noqday waxaanad uga baahnayn oo qof maalin walba iska hagaajisan karto computerkaaga you can do it haddii aad kooraska si dhameystiran ula socoto waanad qaban kartaa si af Soomaaliyeysana insha Allah waan ku dadaalinaa inaan ku sameeyo oo socda kooraska intan dambe waan wadnaa oo waan sii kordhinaa update ayaan ku sameynaa kooraska xaqiisa dambe waxa kaloo isaguna muhiim ah inaad xasuusnaato markii waxaan soo dhiganaa waxa weeyaan channelka YouTube-kan ku leenahay loo yaqaan Tajmal channelkan YouTube ku leenahay Tajmal caadiga Tajmal ayaad ku qori xaggaad sare marka YouTube ka joogto Tajmal markaad ku jiido Tajmal waxa ku soo baxaya bogagsadana Tajmal kaas hore ayaad ku jiidi markaad ku jiido waxa hoos ayaan soo dhiganaa oo arkaysa xaggaas ayaan soo dhiganaa oo ah balka kooraska halku baro technology ay ku qoran tahay kabacdi xaggaas aad kala soconaysaa fiidiyoyada u dambeeyay معنا system أنكو نقول تلاقني هدي الله يدمو channel كان كورس كان sorry كورس كان نقول تلاقني هدي ربتي إن أود كويدت حاجة إن أدوسي كشوا كورس سيدا مثلا حاجاتك إما هو حلم مسوقلين حاجة سان صوري جنا ست حنا مركات كل شيء دي إسقى ست وسقوق سوقلية ست حنا حاجة نوقو صفر صندوقنا وحنا نقول تلاقني إن بشدة كفايدو qof walba oo aanan waxba ka aqoon technology-da soo noloshan qaada ayaan bilownay ilaa iyo si uu hore uga sii socdo hadhow wax baaran karo isagoo soo filan karo kooraska intiisa kale insha Allah waan bilaabi doonaa cashirkii koowaad aan qaadan doonaa oo ah haddii Allah idmo waa maxay computer iyo qaybihiisa aan qaadan doonaa haddii Allah idmo عشرة يعني أنت كنت تجندنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حنا يلاوي إن سبسكرايب ترى هذه channel كساد الله سعد تمر والبا وحي عصب فيديو جي عصب يعني صور دقنا أديكو Gmail كذا كحل السنة جي أن فيسبوك بيج كان لايك سي سوري بيج كان لايك ناسي فضلا سعد الله سعد وحي عصب يعني صور دقنا لايك سي أو كل سعد كرتون إن شاء الله أنت أصلا عشرة كنت تجندنا ما أنت هربعة أو كورس كنا عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته